السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا وركا warbaahinta Hatuf Media oo mar walba xiligan oo kale aad ka daawataan qodobada kuwada ugu doorka roorna waxa qayb ka noqonaya mucaaradka Soomaaliya oo si kulul u ambaareeyay xukunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho. xildhibaan Saadaad Cali oo horey iskaga casilay xilka wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dib ugu soo laabtay xukuumadda kadib markuu ka tanaasulay doorashadii gudoomiyaha golaha shacabka isla markaasina uu u tanaasulay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Daawadyaal intaasi waa qodobada kuwada ugu doorka roorna markan ugu soo dhawaada warkii oo dhan. isku soo noqod wanaagsan daawadyaal. xildhibaan Saadaad Cali oo ku soo laabtay xilka wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda oo horey uu iskaga casilay. Saadaad Cali oo horey iskaga casilay xilka wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa dib ugu soo laabtay xukuumaddii kadib iscilaadiisii xilka wasiir dowlaha. Saadaad Cali oo galay xifaaltanka siyaasadeed ee hoggaanka golaha shacabka isagoo isu soo taagay musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka hase yeeshee tartankiisii ugu dambeyntii ku soo dhamaaday inuu u tanaasulo isagoo taageeradiisii u weeciyay wasiirkii hore ee dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ahna gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka. kadib ku soo laabashadiisii xukuumadda iyo xilkii uu horey isaga casilay ayaa imaanaysa kadib markii uu waayay fursadii uu doonayay inuu kaga mid noqdo hoggaanka sare ee golaha shacabka. madasha samata bixinta Soomaaliya oo ka hadashay dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho isla markaasina madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa ku ambaareeyay sida ay u maareysay dhulalka laga qaaday dadka shacabka ah ee horey loo barakiciyay. dhul marka la siinayo waxa ku baxaya جومتركا عشور ير dadka shaqada qabanaya waxyaabo yar ku bax laakiin muwaadinka dhulka in laga gado meesha kuma jirto. dawladdu muwaadinka dhulka ma gado hal mar la gadaa waxa la gadaa meel dawladdu ka maarantay oo la rabo mashruucaas mashruuc ka weyn in lagu sameeyo nin ganacsada waa laga gidi karaa laakiin ayadana process ay leedahay waxay leedahay gudinaada wax la yiraahdo ay leedahay waxay leedahay hanaan laba marin waxaan ayadana meesha ku jirin oo ku soo bilaabatay wasaarad wasiirku qol oo ka degan yahay hotel inuu yiraahdo dhulkaas waa ka maarmay oo madaxweynuhu oo barashar gareynayo oo leeyahay soo qor warqad anaga qaaran la kulan oo noo sheegay arintaas waxaan iska leenahay ma dhaqaalaha ka soo baxana bangiga maro xisaabiyaha guud maro meel aadana lama yaqaan haddii hadda lagu yiraahdo dhaqaalihi waxa lagu soo gaday dharka ciidanka ama kabaha ciidanka kama hadli kartid kabaha ciidanka lagu soo gaday haddii lagu yiraahdo waxa sheegaysaa cadayn bale marka runtii waa nasiib darro waxaana laga faa'iideystay dadka Soomaaliyeed jaceylka ay u qaban dawladnimada iyo fahamka kooban oo dawladnimada aan ka haysan qofku inuu xuquuq leeyahay dawladda inuu xuquuq leeyahay dawladdu inay waajibaad leedahay arintaas lama socon waxayna hadda sharci kuma socdaan xoogay ku socdaan warqad lagu keenayo oo ka jawaabaysa ma dacwo kartid ma hadli kartid ciidana ku kortaagan 9 saac habeenimo adiga carruurtaadaba banaanka la dhigaya marka kuwa guriyaha ku jira inay fiirsadaan dadka masaakiinta ah guriyaha laga barakicina maalin dambe maxaa ka dhalanay cuquubada ka dhalanaysa waxa ka dhalanaya dawladnimada in la naco xilligii la soo dhaafay dadka Soomaalida heelow badan ay u hayeen dawladnimada soo jeclaanayeen waa la fogay 4 sano la soo dhaafay waa la nacsiyay dawladnimada arintaas marka shala anaga meesha aan ka taagnayn iyo ka fogaan ka joognaa ka soo horjeednaa waxaan ugu yeeraynaa nidaamka waqtigiisu dhamaaday inay joojiyaan arintaas dadka kale oo ganacsatada ah oo ku howlan iyagoon inay joojiyaan hadda 10 dambi gashay 12 ha gelin ka joog ha ku raaxaysanin dad masaakiina oo walaalaha ah gurigooda ina qaadato dhulkooda ina qaadato oo lacag ka samayso في النهاية أنا كمسلمين أنا وحنا مسنا حسابتنا أنا هنا أجرت هأقول إن ذنبي ضد آذان قعنت وذا قبكر المسؤولية ضد آذان قاذكر
guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawanayseen warbaahinta haatu falkaasi ayaan ku soo afmeeraya anigoo Cabdullaahi Gabaan ayaan idinla soo siinay inta mar dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.